السلام عليكم أصحابتا reer derbi ka soo bood warkii hore war soo dhaaf ninka Trump uu xil saaray arrimaha masaafurinta iyo xadka Tom Homan waraysi ayuu maanta waxa uu siiyay telefishinka ABC war cusub ayaa marka ka soo baxay ninkan Tom Homan leeyahay oo Trump uu xil saaray arrimaha masaafurinta iyo xadka ninkan maalmahan waa kii ku celcelinaya waxaan diiradda saaraynaa dadka ammaanka shacabka Mareykanka iyo ammaanka qaranka qatarta ku ah waxa uu sheegay horta maalin kasta diyaaradaha militariga inuu isticmaali doonaan inay dadka masaafuriyaan marka wuxuu yiri dadkaasi dambiilayaasha ah waa dad tira yar oo dhahay marka la eego dadka sharci darada wadanka ku jooga marka wuxuu yiri sida uu madaxweyne Trump sheegaba uu ballan qaaday muhiimadda koobaad marka hore iyaga ayaan siin doonaa laakiin waxa uu yiri qabqabashadu guud ahaan wadanka ayay ka dhici doontaa wuxuu yiri haddii aad wadanka sharci darro ku joogto miiska ayaad saaran tahay qof kasta oo wadanka sharci darro ku joogo miiska ayuu noo saaray macnaheedu waxay tahay in la tarxiilo ayuu diyaar u yahay marka wuxuu yiri okay ma ahan inaad ku xadgudubto sharciyada wadankan wuxuu yiri waa inaad xasuusnaataa haddii aad wadankan sharci darro ku soo gasho wadanka Mareykanka inaad ku xadgudbaysid sharciga immigrationka qodobkiisa 8aad gaar ahaan farqada 325 marka wuxuu yiri waa dambi inaad wadanka sharci darro ku soo gasho ayaaba dambi ah ayuu yiri sida darteed waxa yiri haddii aad wadanka sharci darro ku joogto saaxiib problema ku haysto dhahay problem ayaa ku haysta haddii aad wadanka sharci darro ku joogto sida darteed waxa yiri waxaan rajaynayaa in dadka qof kasta oo wadanka sharci darro ku joogo oo garsoore uusan ku amrin inuu wadanka isaga baxo hadda isagu iskiis ha isku tarxiilo ha isku masaafuriyo wuxuu leeyahay haddii uusan garsoore kugu amrin inaad wadanka ka baxdo oo garsoore maxkamada uusan dhihi qofkan wadanka laga saaro haddaba waa kuu soo soconaaye adigu iskaa isaga bax wadanka sidaas ayaa waraysiga ugu dambeeyay oo maanta bixiyay Tom Homan uu ku sheegay haddaba ila daawada qaybtan uu uga hadlayay arrimahan hadda idin sheegay Tom Homan uga hadlayay bal ila daawada Yes, but you can see the numbers steadily increase, the number of arrests nationwide as we open up the aperture. Right now it's concentrating public safety threats, national security threats. That's a smaller population. So we're going to do this on priority base as President Trump's promised, but as that aperture opens, there'll be more arrests nationwide. If you're in the country illegally, you're on the table because it's not okay to, violate laws of this country. You got to remember, every time you enter this country illegally, you violated a crime under Title 8, United States Code 1325. It's a crime. So if you're in the country illegally, you got a problem. And that's why I'm hoping those who are in the country illegally who have not been ordered removed by the federal judge should leave. وما سنتنا أصحابتا muuqaalkan oo dhammaystiran muuqaal dheer ayaan ka soo sameeynayaa dad la masaafuriyo Guatemala la geeyay Mexico oo diiday diyaarad la rabay in la geeyo arrimahaas oo idila muuqaal ka soo sameeynaya wax yar kadib ayaan soo gelin doonaa YouTube ka Facebook iyo waliba TikTok stay tuned bal ila soco